daawadee ku soo dhowow qiso dhab ah oo taabanaysa dareenkaaga taasi oo loogu magac daray maxaan ilmo u dhali weynay oo aan wax ilma ah isku dhalin isla markaana qoyskan waxa uu maray marxalado kala duwan muddo 6 sano ah ayaa ka soo wareegatay markii ay isku horsadeen Axmed iyo Maryam wax caruura iskuma aysan dhalin habeenada ka mid ah iyagoo is active ayay sheekaysteen waxaana ay wax iska weydiiyeen iyagoo cod hoose ku hadlaya sababta ay ilmo u dhalilayihiin ubadka Allah bixiye sheekadii ayaa ku dheeraatay labadoodaba waxayna isku bedeshay buuq ugu dambeyn waxa lagu heshiiyay in dhakhtar ay subaxdii u tagaan si ay u ogaadaan halka dhibaatada ay ka jirto iyagoo og in Allah subhanahu wa ta'ala uu ubadka bixiyo haddana dadaalka ama reebana markii waaga uu bariyay ayay dhakhtarkii aadeen labadooda iyagoo aan cid kale u sheegin waxaana dhakhtarkii markii ay ciladooda u sheegeen uu ku dhaqaaqay baaritaan muddo kadib oo ay halkaasi joogeen dhakhtarkii wuxuu Axmed tusay natiijadii baaritaanka taas oo ahayd in Axmed caafimaad ahaan uu wanaagsan yahay balse ay Maryam qabto xanuun isla markaana aysan suuragal ahayn inay uur qaado sida uu dhakhtarka sheegay wuxuuna intaa ku daray in aan rajo laga qabin in ay ka bogsato xanuunkaasi Axmed markii uu natiijada arkay waa uu murugooday sidaas oo ay tahayna haddana waxa uu ku shukriyay Allah subhanahu wa ta'ala oo isagu qadar walba wata dhakhtarkii ayuu u sheegay in xaaskiisa uu wacayo si ay gudaha ugu soo gasho laakiin waxa uu ka codsaday in uu dhakhtarka u sheego Maryam inaysan wax xanuun ah qabin dhibkana uu yahay dhankiisa dhakhtarkii ayaa ogolaaday waxa loo yeeray Maryam markii ay gudaha soo gashayna waxa loo sheegay in ay wax xanuun ah qabin ciladana ay ka socoto dhinaca saygeeda Axmed isla markaana aysan suuragal ahayn inay wax caruur ah isku dhalaan sida darteed wax rajo ah lagama qabo ayuu dhakhtarka u sheegay Axmed ayaa markii dhakhtarka uu u sheegay warbixintaasi Maryam waxa uu ahaa mid aamusan wuxuuna fiiriyay Maryam isagoo wajigiisa ka muuqato sida qof qoostay oo kale lamaanihii waxay ku laabteen gurigooda arintii ka soo baxday baaritaankii labadooda waxay si tartiib ah ugu fiday deriska iyo qaraabadooda iyo asxaabtoodaba noloshoodii ay halkaasi ka sii wateen iyagoo dul qaadanaya balse markii 5 sano ay ka soo wareegatay dhacdadaasi xilligii baaritaanka ay ku dhaqaaqeen Maryam waa ay dul qaadan weysay waxay u imaaday Axmed si ay ugu sheegto go'aankeeda waxayna ku tiri sidaan Axmed aniga ima anfacayso waxaan isqabnaa 11 sano ilaa iyo intaasna wax caruur ah maanan helin wiliga maadan igu soo qaadin fariin anigana sida oo kale wax fariin ah maanan kugu soo qaadin ama kaama dalban laakiin markan waxay u muuqataa intaas in ka badan inaan sabri karin fadlan waxaan ka codsanayaa inaad iska kayfurto si aan u guursado nin kale oo aan u helo ubad ay indhahaygu ku dogsadaan Axmed markii uu maqlay hadalka Maryam kama uusan farxin wuxuuna ku yiri in arintan ay amar Ilaah tahay loona baahan yahay in ay ku sabraan isagoo inta raaciyay in muddo kale siiso laga yaabee inay wax isbedelaan way ka aqbashay iyadoo u sheegtay inay siinayso muddo 1 sano ah oo kaliya haddii sanadkaas ay wax isbedel ku arki weysana ay fariinkeeda ku adkeysan doonto maalmo yar kadib Maryam way xanuunsatay isbitaal ayaa la seexiyay xaaladeedana aad ay u liidatay natiijadii baaritaanka waxay noqotay in mid ka mid ah labadeeda kaliyood ay howlgab noqotay Maryam markii ay ogaatay natiijada waxay la hadashay Axmed iyadoo dhahaysa arintan oo dhan waxay iigu dhacaysaa daraada maxaad mar hore iska kayfur weysay aniga waxaan rabaa inaan caruur dhalo waxaan rabaa inaan ilmahayga arko haddii hadda sidaan gablanka ah ku dhinto ka waran Axmed wuxuu ku yiri aniga waan baxayaa safar dibadda ah ayaan u socdaa waan ka xumahay dhibka ku haysta waxaan rajeynayaa in dhawaan aad bogsan doonto hadduu eebba ka raali noqdo orod iska bax ayay ku tiri iyadoo xanaaqsan waan baxayaa oo waxaan rabaa inaan raadiyo qof keli kuugu deeqa ayuu ugu jawaabay
axmed maalin ka hor maalintii qaliinka ayaa waxaa maryan u yimid dhakhtarkii wuxuuna u sheegay in la helay kelidii oo loo gelin lahaa baaritaan qaliin lagu sameeyey maryan waxay soo xusuusatay ninkeedii iyadoo isweydiisay waa nin noocee ah adigoo berita qaliin galaya ayuu iska maqan yahay si kastaba ha ahaatee qaliinkii waa lagu guulaystay isbuuc kadibna waxaa soo laabtay axmed muddo 11 bilood ah qaliinkii kadib maryan way umushay waxay iyada iyo axmed heleen cunugoodii ugu horeeyay aad ayayna ugu farxeen noloshii maalin maalmaha ka mid ah axmed waxa uu gurigiisa ku iloway buug yar oo xusuus qor ahaa kaas oo ay ku qorneed sir in muddo ah uu qarinayay oo qoyskiisa ku saabsan buugga waxa uu dul dhigay miiskii uu ku quraanayay maryan ayaa aragtay buuggii way furtay si ay u eegto waxa ku qoran waxay ku dhawaatay inay suuxdo markii ay aragtay sirta buugga ku qoran ee ku saabsan iyada iyo saygeeda aad ay uga naxday arintaasi isla markiiba waxay wacday axmed markii uu yimidna way ilmeysay wayna raali gelisay arintan kadib maryan muddo 3 bilood ah maysan eegi karin axmed wajigiisa xishood iyo yaxya dartiis qofka kelida ugu deeqayna qof kale ma ahayn waa isla axmed dhakhtarka ayuu ku sir qarsaday ilaa iyo inta ay iska bedelayso qol dhakhtarka bis uu ogaa ayuu ku jiray iyaduna waxa uu u sheegay in uu safar ku soo daahayo noqo mid lamaanihiisa ka taxadara mar walba oo noqo qof daacad ah maxaa yeelay qofka daacad ah marnaba liibaanta ilaahay ma seego lamaanayaasha Soomaaliyeed waxa wanaagsan inay isku dulqaataan marka ugu horeyso marka xigtana in qofka kale uu ku kalsoonaado qisadan waxaan ka baran karnaa in sabarka uu yahay wax wanaagsan isla markaana haddii awlaad meesha aysan oolin uu alle saacad waliba ama maalin waliba ama bil waliba ama sanad waliba uu ku siin karo